مدنيد أذا مريه هذا أفلحو أقول ديغايو إنتي مدنيد هذا مريه بسم الله وعشر كيني سدحاد أو كصابسن أديكسيga calculatorka maanta cashirkeena waxaan ku eegi doonaa sida numberska ama tirooyinka loogu bedelo scientific notation adigoo adeegsanaya calculatorkaaga. marka waa tirooyinka waxaan u shaqeyn doonaa hab manual ah ma isticmaali doona wax calculator ah. example koowaad waxaan haysanaa 352 milyan u bedel scientific notation 352 milyan waxaan u qoraynaa as scientific notation. waxaan wada garanaynaa tirooyinka whole numberka ah sida tan oo kale in decimal pointigooda uu ku qorsoon yahay halkan dambe. marka si aan tiradan ugu bedelno scientific notation waxaan u baahanahay in decimal pointiga aan halkan ka move karayno oo aan keeno halkan. marka waxaan u qori doonaa 3.52 ma qori doono 0da waxaan ku dhufanaynaa 10 wajibaarkeeda oo noqonayo inta digit waan ka wareejinay decimal pointiga. meeqa digit waa 1 2 3 4 5 6 7 8 digit ayaan ka wareejinay decimal pointiga. marka powerka wuxuu noqon doonaa positive 8 maadaama aan u dhaqaaqnay dhanka bidix powerkeenu wuxuu qaadanayaa positive. marka 352 milyan marka scientific notation aan qorno waxay noqonaysaa 3.52 times 10 power. okay isla tiradan aan haysano calculatorkeena aan ugu bedelno scientific notation. okay inta aan numberska aan gelinin calculatorkeena waxaan u baahanahay inaan calculatorkeena modekiisa aan ka dhigno scientific notation si uu resultiga u soo saaray u noqoto as scientific notation. okay si aan calculatorkeena modekiisa ugu dhigno scientific notation waxaan klik ku siinaynaa shift buttonka. okay and then waxaan klik ku siinaynaa mode buttonka. okay options badan ayuu na siiyay calculatorkeena sida ku muuqata. annagana waxaan ka dooran doonaa number 7ka ay ku qoran tahay SCI oo laga soo gaabiyay scientific notation. okay wuxuu na siiyay 0 ilaa 9 inta u dhaxaysa numberka dooro waxaan dooranaynaa number 3. okay calculatorkeena hadda wuxuu programsan yahay inuu resultiga ku soo saaro as scientific notation. okay numberkii aan haysanay aan halkan gelino oo ahaa 352 milyan. okay 352 milyan. equal marka. okay sida noo muuqata waxay noo soo baxday isla resultigii hore oo ahaa 3.52 times 10 power 8. markaad doonaysid inaad tirooyinka caadiga aad u bedeshid scientific notation waxaad adeegsan doontaa ama mari doontaa wayga hadda aan marnay. okay example-keena labaadna aan ku darno. example-ka labaad sida ku muuqata waxay noo qoran 0.00078 u bedel scientific notation. si aan tiradan ugu bedelno scientific notation waxaan u baahanahay inaan ka soo move garayno halkan decimal pointiga oo aan keeno halkan. marka waxaan u qori doonaa 7.8
times 10 powerkeedana wuxuu noqon doonaa inta digit aan ka soo wareejinay decimal pointiga waa 4 marka powerkeeda wuxuu noqon doonaa negative 4 okay powerkeeda negative ayaan siinay sababtan waad garanaysaa waxaan u soo dhaqaaqnay dhanka midigta okay isla numberskan aan ugu bedelnay calculatorkeena scientific notation okay calculatorkeena hadda uma baahna inaan modekiisa mar kale bedelno waayo hore ayaan u bedelnay kaliya waxaan gelinaynaa numberska aan haysano equal de waxaa taawataa sd buttonka halka ay ku qoran tahay okay sida ku muuqata waxay noo soo baxay isla answerkii hadda aan soo saarnay oo marka scientific notation u bedelnay oo noqday 7.8 times 10 power negative 4 cashirkeena halka ayuu ku egyahay